subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaargarooba wararkeena subaxnimo waa Jimco waana 5 bisha 2 sanadka 2022 wararkeena subaxnimada saaxiibayaal qodobada aad ku dhageysan doontaan waxa qayb ka noqon waa qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona al-shabaab oo weerar hoobiyaal xalay mar kale ku qaaday magaalada shirku ka soconaya Dhuuso Mareeb iyo dagaal toos ah oo xalay ka dhacay bartamaha magaalada madaxtooyada oo ku sugay madaxweyne Farmaajo dhowr madaafiic ku soo dhacday madaxweynaha oo lagala cararay dhismaha uu ku sugnaa dhammaan xogo ku saabsan wixii Dhuuso Mareeb ka dhacay xaaladda amni ee madaxweynaha oo khatar badan gashay iyo madaxda maamul goboleedyada oo qaarkood la sheegay inay magaaladu iskaga baxeen markii madaafiicdu ay ku soo dhacayeen wax walba oo ku saabsan wixii Dhuuso Mareeb xalay ka dhacay ayaa warkeena aad ku daawan doontaan dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in shabaabkii xalay soo weeraray Dhuuso Mareeb 8 kamid ah la toogtay hub iyo meydadna ay soo bandhigeen taliska militariga si lama filaan arrintan kaga hadlay ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal wasiirka amniga galmudug waxa uu sheegay inay ku raajoogaan shabaabkii xalay soo weeraray Dhuuso Mareeb ciidamaduna ay qabteen xubno kamid ah shabaabkaasi wasiir fiqih oo ka hadlaya dib u dhac ayaa ku yimid warmurtiyeed la filayay xalay shirka Dhuuso Mareeb laga soo saaray madaxda wali isku marila qodobo xasaasi ay ku jirto gobolkaasi Gadow madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland oo xalay 3 jeer shirka iskaga baxay iyo madaxweynaha Jubbaland oo la sheegay in guud ahaanba uu ka carooday ka qaybgalka shirkaasi wax walba oo ku saabsan Dhuuso Mareeb shirarka iyo qodobada ilaa hadda la isku fahmi laayay oo miiska saaran ayaan eegi doonaa iyo labada madaxweyne sababaha shirka ugu baxeen xalay kulankii madaxweyne Farmaajo ugu yeeray baarlamaanka inuu hortagay maanta Jimco ayaa qabsoomi waayay iyo xildhibaanada oo ka soo horjeestay madaxweynuhu hor yimaado baarlamaanka talaabadaas oo madaxweyne Farmaajo dhibaato ku ah marka loo eego qorshaha muddo kordhinta madaxweynuhu damacsanaa al-shabaab waxay dib u badhayeen deegaanka warmaxan oo hoostaga walaweyn oo xalay ay la wareegeen kadib dagaal halkaasi ka dhacay booliiska Puntland waxa la sheegay inay ka hortageen gabar doonaysa inay isgubto dowladda Soomaaliya ayaa arintaas waa dowladda Soomaaliya diyaarado gargaar sida ay gaarsiisay degmada Dinsor oo ay go'doon ka jiro Erdogan waxa uu wajahayaa hadallo uu sheegay dhibaato badan ka dhalatay qodobadaas iyo kuba kale ayaa qayb ka saaxiibayaal wararkeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada nagu xiray channelkeena subscribe inoo dhega mararkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka wararka iyo xogaha gaarka ah halkan aan ku baayno subax wanaagsan saaxiibayaal mar kale soo dhawaada aan ku bilaabay warbixinteena ugu horeysa ee warkeena subaxnimo al-shabaab ayaa weerar madaafiica xalay mar kale ku qaaday magaalada uu ka soconaya shirka lagu gorfeynayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee Dhuuso Mareeb sidoo kale la banaanka magaalada ama duleedka magaalada Dhuuso Mareeb waxa ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo al-shabaab halkaas ay ku soo qaadeen dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in shabaabkii xalay soo weeraray Dhuuso Mareeb 8 kamid ah toogasho lagu dilay hubna ay soo bandhigeen saraakiisha ciidanka Gorgor oo goor dambe xalay saq dhaxda warbaahinta kula hadlay Dhuuso Mareeb wararkii ugu dambeeyay magaalada Rijaal Cabdi ayaa inoo soo koobay dagaal socday muddo ku dhow saacad ayaa duleedka koonfureed ee magaalada Dhuuso Mareeb ku dhaxmaray ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale ururka al-shabaab waxaana la maqlayay daryanka madaafiicda labada dhinac ay isweydaarsanayeen saraakiisha ciidanka dowladda ayaa xaqiijiyay in weerarkan al-shabaab ay qorsheeyeen inay ku soo beegsadaan xerada ciidanka Gorgor ayna ka hortageen sidii loo qorsheeyay isla markaana ay ka warheleen in xubno kamid ah ururka al-shabaab ay ku soo wajahayeen Dhuuso Mareeb taas oo ay sheegeen inay wadada u galeen taliyaha ururka 15aad ee kumaandooska Gorgor Maxamed Dhagaweyne ayaa xaqiijiyay in ciidanka amnigu ay gacanta ku hayaan qori hoobiye ah gaariga ay wateen kooxdii weerarka soo qaaday qoryo fudud oo ay ku jiraan BKM nin dhaawaca iyo meydka 8 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab waa sida uu sheegay qolada qawaarishta ay caawa 6 saac oo habeenimo waxay damceen qalqaliyaan caasimadda amnigeeda qorgaas oo u jeedaan binaanka iyo ciidankaas nimanka shabaabka meesha ilaa 9 ayaa waxay soo weerareen iyo gaarigaas ayaa waxay soo weerareen meeshan waxa ka howlgalay ciidamada amniga gaar ahaan guutada Gorgor ururkeeda 15aad waxaana ku guuleysanay inaan qabanno ilaa iyo dhowr 10 xagga yaala meedkooda oo hadda waa la soo qaadi waayay laga gaari waayay dhaawac waa jira hadda wax loo qaaday magaalada loo qaaday intana hadda waa qabanay insha Allah hadii Ilaahay idmano berino ka sii howlgali doonaa sidoo kale waxa uu sheegay inay ku sii raad joogaan xubno kale oo ka tirsan ururka al-shabaab oo sheegay inay baxsadeen isla markaana howlgalkaas waxa uu tilmaamay inuu u dhacay sidii loo qorsheeyay
magaalada dhuusamareeb waxaa ku shirsan madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada iyadoo weli aysan wax wara kasoo saarin weerarka ka dhacay duleedka magaalada bilihii lasoo dhaafay ayaa al-shabaab dhowr jeer waxay weerar kusoo qaadeen magaalada dhuusamareeb taasoo inta badanba ay u adeegsadeen hoobiyaal ay kusoo tuureen garoonka diyaaradaha ee dhuusamareeb iyo xaafadaha ka agdhow inkastoo aysan jirin khasaare ka dhashay oo galmudug ay shaacisay. haddaba dhinaca kalena wasiirka amniga ee galmudug axmed macali fiqi oo u waramay laanta afka soomaaliga ee v o a da ayaa waxa uu sheegay inay ku raajoogaan shabaabkii soo weeraray magaalada maadaama uu sheegay in qaarkood la toogtay kuwana yar ay baxsadeen. wasiirka amniga ayaa meesha ka saaray in amni xumo ay soo wajahayso magaalada dhuusamareeb oo magaaladu ka soconaya shirka looga hadlay arrimaha doorashooyinka. waxa uuse sheegay in ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay u diyaarsiin ka hortegidda qatar walba oo soo wajahda madaxda ku sugan dhuusamareeb. qori la yiraahdo oo B10 ka weyn qoryaha madaafiicda ah ayay dhowr xabo kusoo tureen duleedka magaalada kadibna ciidamada amniga ayaa weerar xoogan meeshii waana ka sheeyeen ku qaaday waxaana runtii lasoo afjiray kooxihii weerarka geystoo dhan iyo baabuurkii ay wateen iyo qorigii ay wateen iyo dhammaan gacanta lagu hayaa. howlgalkaasi si wanaagsan buu usoo gabagabay. khasaaraha kolley kooxaha tobanay ay ahaayeen waxaan hadda ku maqaala oo laisoo gudbinay inkastoo xilli hore ay tahay oo hadda hal saac kasoo wareegtay xilligaas in kooxihii dhammaantood in wax dhintay iyo wax dhaawac ah ay isugu jiraan. weliba dhimashadu ay u badan tahay. gaadiidkii ay wateen oo halka gaaray oo qooqanana iyo qorigii ina maaragtay la gubay asagoo burbursanay meesha yaalo. wax soo gaaray ma jiraan ciidanka amniga. waa alxamdulilah runtii waa ay ku kadsoomeen waana caaway meydkooda iyo halaagooda meeshaas ka dhacay. waxayna u ahayd darsi fiican oo kooxahaas la siiyey oo qalqal ku wada soomaaliya oo dhan si guud si gaar ahna rabay inay news abuuraan oo caasimada galmudug oo shirar waaweyn oo mustaqbalka soomaaliya siyaasadiisa looga arrinsanayo ay ka socotay inay news ku abuuraan bay rabeen laakiin runtii iyaga hadda news noqday. waxay ku dhigan tahay runtii dee kooxahan argagixisadu ayagu kooxa naftoodana ka naxaya maahan. kooxa ay maaragtay u qiyaasan tahay khatarta iyo waxa soo gaaraya naftooda maahan keliya dee niman gafanayaala oo u dambeeya ayaa raba inay news abuurtaan oo yidhaahdaan waxaan weerarnay caasimadii galmudug oo madaxdii dowladda iyo madaxdii dowlad goboleedyada ay ku shirayaan intaasay ka rabeen. laakiin labada jeer maalmo ka horkii ahaana meyd iyo dhaawacba meeshii waa tii ay uga tageen iyo hubkoodii oo ay ka carareen. macaawana dee waa tan kooxdii weerarka geysatoo dhan meesha lagu soo afjaray. marka waxay uga dhigan tahay inay argagixisada inay axmed macali fiqi ayuu kaasi ahaa wasiirka amniga galmudug oo u waramayay laanta afka soomaaliga v o a da kadib weerarkii al-shabaab ee xalay mar kale madaafiicii dagaalba ay kusoo qaadeen magaalada dhuusamareeb. inkastoo ciidamada ammaanka gorgor muuqaalo iyo sawiro laga soo qaday muujinayeen ama ay soo bandhigeenba meydadka 8 ka mid ah xubnihii al-shabaab ee weerarka soo qaaday qoryo hub ah oo ciidamadu ay soo bandhigeen. dhuusamareeb waxaa ka soconaya shirka madaxda waxayna u muuqanaysaa mid madaxda qaarkood ay walwal xoogan ku abuuri karto amnigooda marka loo eego magaaladaas oo madaafiicdu ay ku dul hoobanayso markii labaad. haddaba dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ee shirka dhuusamareeb ayaan markan isdul istaagi doonaa. warmurtiyeed ayaa la filayay in lasoo saaro oo isla xalayba laakiin ma aysan dhicin waxaana lasoo warinaya in xitaa madaxweynaha puntland iyo jubbaland xalay waqti dambe shirku iskaga baxeen markii ay ku qanci waayeen sida ay wax u socdaan. wararkii ugu dambeeyay aan soo koobo shirarka dhuusamareeb. wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in weli wax horumar aan laga sameynay 2 ka mid ah 3 qodob ee miiska saarnaa oo maalintii 3aad ee shirka uu ka soconayay galmudug.
saddexda qodob ee miiska saarna ayaa kala ah cidda soo xulaysa xildhibaanada gobolada waqooyi, arrinta gobolkaasi Gedo iyo diidmada horaanba laga muujiyey xubnaha guddiga doorashooyinka oo qaarkood golaha midowga musharaxiintu ay dalbadeen in badi la bedelo maadaama ay ku jiraan saraakiil nisa ah kuwo baraha bulshada iyo taageerayaasha madaxweyne Farmaajo. shirka oo ay ka qaybgalayeen madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha dalka, madaxweynayaasha maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa mar u muuqanaya mid xogaa horumar badan laga sameeyay, laakiin waqtigii dambe galabta ilaa xalay la sheegay in madaxda ay ku kala adkaatay in heshiis badan laga gaaro qodobada qaarkood. mid ka mid ah labada qodob ee lahaa horumar badan ayaa laga sameeyey waxaa kamid ah arrinta gobolkaasi Gedo oo markii hore guddi ka kooban madaxweynaha Puntland, Galmudug iyo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeedba loo xil saaray kasoo tala bixinta guddigaas oo isla galabtii shalayba keenay macluumaadyo la xiriira in magaalada Garbaharey la geeyo booliiska AMISOM ayna tagaan guddiga doorashada ee matalaya Jubbaland iyo in gacanta lagu celiyo maamulka Jubbaland iyo kuwa wakiilka ka ah Garbaharey si doorashada halkaasi u daadiyaan. tallaabadaas oo la sheegay madaxweyne Farmaajo ay u cuntumi weyday. wararka waxay inta ay ku darayaan in gilinkii dambe ee shalay madaxda mar kale ay ishor fadhiisteen ayadan wax horumar ah laga sameynin qodobada qaarkood ayaa la sheegay in isku soo noqdeen galabtii ilaa xalay, taasoo dhabaha u xaartay in waqti dambe uu shirka xalay uu iskaga baxo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sida ay ku waramayaan xubno ku sugan magaalada Dhuusamareeb. ila wareedida ayaa sheegaya in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo isla xalay hoygu ka degan yahay magaalada Dhuusamareeb ugu tagay madaxweyne Axmed Madoobe si uu u qanciyo kusoo loqoshada shirka, balse waxaa la sheegay in madaxweynuhu ka carooday wararka qaarkood oo sheegaya arrinta gobolkaasi Gedo. ila wareedida ayaa sheegaya in Axmed Madoobe madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuusan doonin in heshiis laga gaaro shirka wadatashiga Dhuusamareeb uu doonayo iska daba wareeg, tallaabadaas oo la sheegay inay u cuntami weyday. sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa waqti dambe oo xalay la sheegay in shirku iskaga baxay inkastoo markii dambe dib ugu soo noqday. marka laga soo tago madaxweynaha Jubbaland, madaxda kale ayaa la sheegay inay gudagaleen qodobka kale ee dooda badan dheliyay oo ah cidda loogu dambeynayo xulista iyo magacaabista guddiga doorashooyinka ee soo xulaya xildhibaanada gobolada waqooyi, waana qodob kale oo xasaasadiisa lahaa marka loo eego shirka. gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa qadka telefoonka la sheegay in loogu soo qaybgeliyay shirka, kaasoo ku dooday inuu yahay mas-uulka ugu sarreeya ee mudan ee dowladda federaalka ka tirsan ee kala soo jeeda gobolada waqooyi in loogu dambeeyo isaga, isla markaana isaga uu yahay kan mudan magacaabista xubnaha guddiga doorashooyinka ee matalaya Somaliland. sidaas darteedna aan loo baahnayn arrimo kale iyo iskaashi in lagala sameeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed. madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu ka andacoonayo hadiiba ay tahay in Cabdi Xaashi loo dhiibo ay iskaashi ka sameeyeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo ay madaxweynuhu saaxiibo dhow yihiin. tallaabadaas oo la sheegay Cabdi Xaashi qudhiisu inuu kasoo horjeestay. dhinaca kale madaxweyne Farmaajo ayaa lasoo sheegayaa inuu tanaasul badan uu ka sameeyey qodobka la xiriira wax ka bedelka guddiga doorashooyinka oo qaarkood la sheegay inay ka tirsan saraakiil ka tirsan hay-adda NISA, shaqaalaha xafiiska rayidka iyo kan madaxtooyada Soomaaliya. qodobkaas oo la sheegay in madaxweynuhu ogolaaday in isbedel lagu sameeyo guddiga doorashooyinka lagu murusan yahay ee dowladdu ay dejisay hoteelo ku yaala Muqdisho. sida muuqata shirkan jadwalkii ay u qorsheysay Villa Soomaaliya ayaa guud ahaan daaqada ka baxay marka loo eego jadwalkaas oo ahaa 1 ilaa 3 bisha in lagu soo idleeyo. shirka ayaana u muuqanaya mid waqti kala dheeraad qaadan doona maadaama ilaa hadda aysan jirin qodobo si toos ah horumar badan laga sameeyay marka loo eego 3 qodob ee ugu culus ee miiska saaran oo arrinta Gedo, Somaliland iyo waliba sidoo kale guddiga doorashada. ismariwaaga shirka Dhuusamareeb ayaa imaanaya xilli beesha caalamka madaxda Soomaalida ay ku cadaadinayso in is-afgarad buuxa oo laga gaaro doorashada, iyadoo is-afgaradkaasna heshiis mar walba loogu dhigayo shirkii dhacay 17 September. tallaabadaas oo u muuqanaysa mid meesha ka saareysa saxiixii madaxweynaha ee 13 kursi ee gobolka Banaadir. waxyaabaha kale ee goosgooska ama cajiibka laga soo warinayo shirka ayaa waxaa qayb ka ah in arrinta gobolka Banaadir marna aan lagu soo hadal qaadan shirka, gaar ahaan heshiiska ama 13 senatar ee madaxweynuhu uu siiyay gobolka Banaadir. tallaabadaas oo la sheegay in marna
aan xitaa shirka lagu soo hadal qaadin marka loo eego cadaadiska beesha caalamka iyo beesha caalamka oo markii hore dalbadaba in shirka dhuusamareeb lagu saleeyo shirkii dhacay 17 Sebtembar taasoo meesha ka saareysa 13 senatar ee madaxweynuhu saxiixay ee gobolka Banaadir waxayna u muuqanaysaa arrin kale Axmed Madoobe iyo Dani ay ku guuleysan marka loo eego Axmed Madoobe iyo Dani ayaa laba jeer shirka ka baxay kuwaasoo markii dambe la sheegay in madaxweyne Dani lagu guuleystay in lagu soo celiyo way adag tahay in waqti hore isla maanta ama beriba shirkani la soo gabagabeeyay haddii aysan dhinacyadu tanaasul badan sameyn sida ay ku waramayeen xildhibaano iyo xubno kale oo halkaasi ku sugan wuxuu ku soo kordhaa shirkaasna saaxiibyal wararkeena dambe ayaa naga xasuusina dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta qorsheeyay inuu hortago baarlamaanka khudbadna u jeediyo kana siiyo warbixin xaaladda dalka uu marayso marka loo eego jadwalka madaxtooyada ay soo saarto waxay soo muuqataa inuu dib u dhacay waxaa dib u dhac ku yimid shirkii madaxweynaha Soomaaliya oo cilaamiyay 5 bishan oo maanta oo Jimcaha ku beegan inuu hortagi doono baarlamaanka labada aqal si uu khudbad u siiyo khudbadiisana ku aadan xaaladda dalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo goor dambe xalay ah la hadlay waxa ay sheegeen in ay madaxweynuhu ay ka biyadiideen qorshaha ah in maanta Jimcaha baarlamaanka la shiriyo maadaama maanta Jimcaha ay tahay fasaxa baarlamaanka in madaxweynuhu wali uu ku sugay shirka dhuusamareeb oo waqti badan ay qaadatay ayna waxaa la sheegay in tallaabo kale oo madaxweynuhu culays ku noqotay baaqashadiisa iyo in Muqdisho uu soo gaaro in bari ay tahay in maanta ay tahay maalin la siino ay xildhibaanadu fasax yihiin ayaa ina ay tahay wax kale ay ku doodeen guddoonka baarlamaanka sida ila wareedii lagu kalsoonaan karo ay risaalo u xaqiijiyeen gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa ayaa la sheegay in madaxweynaha ay ka diideen in maanta Jimco ah in la shiriyo baarlamaanka madaxweynuhu khudbad u jeediyo ila wareedii iyo xubno ku dhaw guddoonka baarlamaanka ayaa sheegaya in madaxweynuhu marka uu qorsheynayay safar degdeg ah in isla bari waa isla shalay in dhuusamareeb uu ka yimaado si maanta baarlamaanka khudbad ugu horjeediyo hase yeeshee guddoonka ayaa dalbaday maalinta Sabtida oo 6 bisha la qorsheeyay in kulanka degdeg ah la qabto kaasoo madaxweynaha Soomaaliya haddii ay u suurto gashay in shirka dhuusamareeb xal laga gaaro oo safarkiisa oo soo hormariyo si uu soo gaaray magaalada Muqdisho xogaan ayaa sheegay madaxweynuhu doonayay inuu ka soo tago dhuusamareeb oo markuu la hadlo xildhibaanadana oo dib ugu laabto magaalada dhuusamareeb si loo sii ambaqaado wada hadalada laakiin xogahan helin ayaa sidoo kale tibaaxaya in cadaadiska beesha caalamka madaxweynuhu ay keentay inaysan u suurtagelin in asagoo heshiis la gaarin inuu kasoo tago magaalada dhuusamareeb qoraalkii shalay galab ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxaa madaxda ku shirtay dhuusamareeb loo sheegay inay qasabtaa in heshiis lagu gaaro magaaladaas iyadoon heshiis la gaarin aan laga soo kala tegin maadaama beesha caalamka ay ku goodiyeen in la waayi doono taageerada beesha caalamka si weyn ayaa loo dhoorayaa kulanka madaxweynaha uu dalbaday baarlamaanka khudbadiisa iyo wuxuu kusoo hadal qaadi doono marka loo eego waqtiga madaxweynuhu ay ka hartay 4 maalin oo kaliya marka loo eego waqtiga uu xaqa u lahaa madaxweynuhu dastuurkan uu siinayo wagaag saaxiibayaal wali wararkeena ayaa dhageysanaysaan ee booliiska Puntland waxaa la sheegay inay ka hortageen gabar dooneysay inay isgubto ciidamada booliiska gobolka waa ciidamada booliiska Puntland ee gobolkaasi Nugaal ku sugan ayaa shaaca ka qaaday in xalay ay ka hortageen dhacdo fool xun oo ka dhici lahayd magaalada kadib markii ay sheegeen in booliisku ay ogaadeen gabar dhalinyaro ah oo dooneysay inay isgubto qoraal lagu daabacay bogga Facebook ee booliiska Puntland waxaa lagu sheegay in ciidamada amniga Garowe ay ka hortageen arrintan oo ka dhici lahayd xaafad ka tirsan caasimadda Garowe ee waa caasimadda Puntland ee Garowe qoraalka ka soo baxay booliiska waxaa lagu xusay in gabadhan ay wadatay baasiin iyo taraq ayna dooneysay inay isgubto balse ciidamadu ay ogaadeen daytana ay ka hortagaan oo laga qaaday ciidamada ammaanka ee Garowe iyo saraakiisha howlgalkan booliiska gobolka Nugaal waxay ka hortageen dhacdo fool xun oo gabar dhalinyaro ah ay dooneysay inay isku gubto goob cidla ah oo nafsadeedu ay khatar ku geliso waxay wadatay baasiin iyo taraq waxay dooneysay inay isgubto balse nasiib wanaag taraqii ayaa qoyay sida darteedna waa u daarmi waayay ciidamaduna ay ka soo gaareen ayuu yiri sarkaal u hadlay booliiska wagaag saaxiibayaal wali wararkeena ayaad la socotaan markaan eegno Shabeellaha Hoosena waxaa soo baxaya macluumaad sheegaya in al-shabaab aysan u suurto geli weyday inay sii joogaan deegaanka Warmaxan
oo xalay goor dambe ay la wareegeen. Al-shabaab ayaa la sheegay in weerar qorsheysnaa markii hore ay ku qaadeen deegaano kamid ah Shabeellaha Hoose ayna u suurto gashay inay la wareegaan deegaanka Warmaxan oo hoostaga Walaweyn iyo sidoo kale meel dhowr kilomitir u jira magaalada Afgooyo ayna weerar ay ka fuliyeen gaar ahaan ciidamo galbinaya gaadiid sida dhuxul sida wararku ay sheegayaan. Shabeellaha Hoose waxaa la soo sheegayaa in goor dambe xalay ciidamada ay iskaga baxeen deegaanka Warmaxan oo hoos yimaada Walaweyn halkaasna militariga Soomaaliya xalay ilaa maanta waqtiga hore ee saakiba howlgalla ay ka sameynayaan. Dagaalka ayaa ka dhashay khasaare kala duwan oo Al-shabaab iyo waliba sidoo kale ciidamada dowladda dhexmaray waxaana la sheegay shabaab waqti yar oo kooban ay ku sugnayeen deegaanka Warmaxan ay dib iskaga laabteen. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa xaqiijinaya in aysan rasaas badan xalay ka dhicin magaalada marka loo eego ka bixitaankooda Al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo dib u soo gaareen. Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in saaki howlgalla ay ka sameynayaan Shabeellaha Hoose. Sidoo kale Al-shabaab waxaa la sheegay in dad ay afduubteen kuwan ay dileen oo askari ku jiraan oo galbinaya gaadiid sidii dhuxul qaarkoodna gaadiidkaas ay dab qabadsiiyeen. waagaag saaxiibayaal warbixinadaas ayaana ugu waaweynaa warkiini subaxna halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya. waxaan naga xasuusina haddii wararka dhuuso mareeb ee shirarkaas ay kusoo kordhaan wararkeena dambe ayaa naga xasuusina. nabadgelyo.